Helitaanka tirsi-sanadeedka Soomaalida ay leedahay waxa ay ka soo bilaabatay geeridii boqorkii Kushitiga ee ku xeeldheeraa cilmi falagga ama cilmiga barashada meerayaasha, balse waxaa xilligan cilmi baaris ku sameeyay aqoon-yahano Soomaaliyeed. Dr. Maxamuud Cabdi Cismaan ayaa waxa uu Akadeemiyadda Cilmiga Fanka Suugaanta ku soo bandhigay taariikh tusaha dab-shidka ee tirsi-sanadeedka Soomaalida oo muhiimadiisu tahay si loola socdo isbeddelka guud ee cimilada Bariga Afrika aynu ku noolnahay. In aan fahamsiino dadka reer magaalka ah ee badanaa fahmay bilahan miilaadiga iyo hijriga. Tan annaga aan leenahay in aan fahamsiino ayaan daraasad ka soo sameynay. Waxa ayna ahayd inaan sanadkii hore aan soo bandhigno. Sanadkii hore waxay naga soo galaysay 0 oo waxay ahayd 1110 ayay ahayd. waxaan ugu talagalnay markii inaan ku soo aadino sanadkan oo ah sanad Jimca oo ku beegan 1 bisha koobaad 1111 shalayna ku beegneed. xafladan waxay ahayd insha Allah la qabto, laakiin shalay waxay naga ahayd maalin fasax oo dadkii fasax ay wada jireen. sidaas darteed haddii aan is waafajino sanadkan oo la yiraahdo sanad Jimcaad shalay ayuu ku ahay waa 1 bishii koobaad 1111 waa sanadka ama tirsiga Soomaalida. kan hijrigana wuxuu marayay 26 bisha toddobaad 1441. Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax, gudoomiyaha Akadeemiyadda, waxa uu tilmaamay in daafurkan uu yahay mid taariikhda galay loona baahan yahay in aqoon-yahanada aragtidooda ku beeriyaan. waa wax aad u fiican oo lagu faano. anigu iyo siyaasadda akadeemiyada marka la fiiriyo waa waxyaabaha ay rabto in dadka cilmi baarayaasha ay ku dhiiradaan inay sameeyaan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waa idin soo dhaweynayaa warka waxa ka sugaynaa intiisa badan dictoorkii soo sameeyay cilmi baaristan. aqoon-yahanada qaar ayaa ka hadla aragtidooda si ay muhiim u tahay in lagu horumari karo waxa ay ummadu gooni u leedahay. waxaa loo baahan yahay waxyaabaha taariikhda ah oo dadsaasku oo keenay ayaana rajaynaynaa inay biis noqon doonto insha Allah taala. ayaama hore way cuslaanaysaa oo dadku inay ku adkaato waa laga yaabaa, laakiin markii lagu celiyo waa la baran doonaa insha Allah taala. barnaamijkan waa barnaamij aan bilow ahayn marka la fiirsho, sababtoo cilmi baarayaal badan baa ayaa hore u sameeyay, macaahid badan baa hore u sameysay, laakiin waxay sameeyeen wax kala duwan sameeyeen. salaan qaar ka mid ah dadka cilmi baaristan bilaha ka tirsiga sameeyay qaar ka mid ah 12 bilood ay soo bandhigay bisha dago oo Muharram ay isku aadiyeen. Kalandarka ayaa muujinaya 4 xilli gu, dayr, jiilaal iyo xagaa, waxaana xooga saaraya wax soo saarka dalka si loo horumariyo. Deeqa uu Karjiin warbaahinta qaranka Muqdisho.